السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنك هذا مستر علي يا سومالي أمريكان حدنا الدجن ودنك إندونيسيا وعرب هالكن هنا إن شاء الله يديك شرحه نولش يدي إن شاء الله مركو رئيس أنا وحنا ريد مقدشو حافظ لي توفيق هول وداد هودن يا إيو هلوا ومركو دم عندك إن شاء الله أنت سدقالو الحمد لله وقت أنا حمر جولي وحان لهان قناعسته أنا جي في ملكين وحان قناعسته وحان لهين دكامين وحان كلهين عيل قابت قفكي قانون أنا في ايجت ماشي الأورنج ولوجا جي ألعبتها جملة شيء سكرته بركة استذا وحول ألعبت لكن كينيا وحول بان قد جرنا على أنت الشاه وحول بان قد جرنا الحمد لله وحنا هذيك middle class to high class sida dadku yaqaaniin dadka la baan heen guryo badan baan ku leeyahay magaalada Muqdisho xaafado badan baan guryo aan ku lahayn ganacsigeenu aad buu wanaagsan waxa dhacday insha Allah dagaalka inuu bilaabmay hada shaqeeye kadib waxa dhacday wadanka in laga kala qaxay alxamdulillah aduu ganacsigeenu anaga wuu noo badbaaday inteena badan laakiin ganacsigu wuu istaagay waxaan noqotay dagaal qabaa'il in la isna faraha la isku bixiyo oo la islaayo markay taa dhacdaan waxaan insha Allah aan iska joogno wadanka alxamdulillah inna 1992 markii ay macluusha baan Soomaaliya ka dhacday Mareykanka ciidamo badan ay u soo direen Soomaaliya iyo 32 wadan ay u soo direen waxaan kamid ah dhalinyarada ay qorteen oo turjumaanada u ahaa ciidamada Mareykanka shaqadeenu waxay ahayd inaan cuntada gaarsiino dadka masaakiinta oo baaba'an especially oo koonfurta ka soo hajiro xamar yihiin xeriyahooda ayaan cuntada u qaybin jirnay waan daaway jirnay shaqadeena saas bay turjumaanadeena oo wax kale oo hada turjumaano kale oo sameey karnay ma jiro kadibna waxaa timay yimid dagaalkii Cali Maadi iyo Caydiid soo ogtay ka markuu dhacay adwaat shahaado isbedeshay markiiba Caydiid uu aad u xanaaqay oo ay noqdeen macnaha inay wanteed ay noqdaan ciidamada Mareykanka iyo ciidamada joogada oo halka lagu laayay ilaa waxaan sodomeeyo ciidamada Pakistan ina qofkii xamar joogay markaa la soo waqtiga markay dhacday ee xaaladdu xumaato UN-ku ay jahadii humanitarian ay ka wareejiyeen political waxaan doortay inaan iskaga tago wadanka waxaan aaday wadankan Kenya insha Allah ayaan tagay alxamdulillah waxaan waqti waraaqo badan oo ay sameeyeen ciidamada Mareykanka oo la shaqeey jiray turjumaanaha iyagii baa isla waraaqay baan waxaan tusay UN-ka isla markiiba waxa la diiyo hotel oo cun oo cabayay familkaadana keensabalay familkii xaaskeyga hooyaday gabar Soomaali marka aan isku soo laba ciyaal ay haysay iyo hooyaday ayaan waxaan ka soo qaaday Soomaaliya waxaan keenay Kenya waxaan joognay muddo 6 bilood ah kadibna waxaan loo soo qaaday wadanka Mareykanka gobol yiraahdo Pennsylvania oo New York ku dhagan ayaana la keenay alxamdulillah annagoo laba ciyaal wada alxamdulillah halka waxaan noogu dhashay Mareykan 7 ciyaal oo kale marka alxamdulillah caruurta alxamdulillah hadda ii joogto waa Mareykan jirto waa 8 ciyaal 4 wiil 4 gabdhood iyo halkan oo xaaskeyga ah oo waxa ii jooga 2 gabdhood laba caruur gabar liiraa Sara iyo wiil liiraado oo Jibril oo hurday iyo xaaskeyga insha Allah marka insha Allah waa from Mogadishu to Minnesota Minneapolis to Indonesia insha Allah haddii aan ugu cusub tahay janaalkeena Ali family Indonesia subscribe sar and the like insha Allah YouTube kana waxaan soo gudbin doonaa insha Allah sida aan isku baranay sida aan Mareykan waan joogay wax aan qaban jiray iyo markii aan ka soo tagay Mareykan oo aan soo wareegay Indonesia sida aan isku baranay gabadhan xaaskeyga aan soo guursanay iyo sida aan ganacsiga halkan ka bilaabno halkan ganacsi weyn ayaan ku leenahay alxamdulillah oo export ah iyo maqaayado cuntada Hindida iyo Carabta kadaba insha Allah hadaan ugu cusub tahay alifamilyindonesia.com insha Allah familkeyga waa ka maanta waxaan soo baxnay inaan iska baashaalno insha Allah alxamdulillah marka insha Allah hadaan ugu cusub tahay waa insha Allah video like share and subscribe insha Allah and follow our Facebook iyo Instagram insha Allah
haddii aad u baahantay wixii macluumaad u baahantay ingiriis u baahantana waxaan nambarkeena whatsapp ka heli karaysaa barteena facebook insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh